saxaafaddu inta badan muhiim ayay u tahay qofka inta uu nool yahay inuu mar un barto mase ku jirto qofka haddii uu noqonayo qof ka shaqaynaya howlaha sirdoonka ama jaajuusnimada. Qofka marka uu doonayo inuu ku biiro muqaabaraadka, saxaafaddu waxay ka mid tahay howlaha ugu muhiimsan ee qofka laga rabo inuu yaqaano. Qofka ayaa sidoo kale looga baahan yahay inuu mar waliba yaqaano xeelado iyo xirfado uu ku shaqaysan karo marka loo diro howl dalkiisa muhiim u ah, taasi oo taala dhulalka dowladaha dalkiisa cadowga ku ah. Dhacdadan maanta aynu ka hadlayno waxay gebi ahaanba beddeshay nidaamkii ay ku shaqayn jirtay warbaahinta. Dagaalkii koowaad ee dunida waa tii laga adkaaday Jarmalka iyo xulafadiisa. Kadib isbahaysigii guulaystay waxay Jarmalku ay la galeen heshiis loogu magac daray heshiiskii fashiliyay. Heshiiskan oo la saxiixay 28 Juun sanadii 1919 waxaa qodobadiisa ka mid ahaa in Jarmalka aanay dhisan karin wax ciidan ah oo weliba ay qirtaan in dagaalkii dhacay mas'uuliyadiisu iyaga ay lahaayeen magdhowna ay bixiyaan. Laakiin Adolf Hitler ayaa ka faa'iidaystay ciyaaraha Olombikada ee ka dhacayay dalkiisa sanadii 1936 isaga oo sheegay in uu u diyaar garoobayo waxa uu ku dhex qarsaday dhisme ciidan, waxaana sameeyay ciidan awood badan oo caalami ah. Bertolt Jacob waxay noloshiisu ay u dhaxaysay dalalka Jarmalka iyo Switzerland, waxaana ahaa qoraa aad uga soo horjeeda in Jarmalku uu hub iyo ciidan yeesho. Waxa uuna ogaaday in Jarmalku ciidan weyn uu dhisanayo, isaga oo muddo dheer ururinaya xogo muhiim ah oo ku saabsan Jarmalka ciidamada uu dhisanayo ayuu markii dambe ka daabacay buug weyn. Ninkan ayaa kashifay isaga oo qoray ama daabacay buug uu ku qoray isbahaysigii Jarmalka, hogaamiyaashooda, qaybahooda kala duwan, ururada, unugyada iyo dhammaan wixii tafaasiil ah oo ku saabsan ciidanka uu dhisayo Adolf Hitler. Arrintaasi kadib, buuggii uu qoray qoraagan lagu magacaabo Jacob ayaa waxaa loo geeyay Adolf Hitler. Ciidamada Jarmalka iyo hoggaanka oo isla yaaban sida qoraagan uu uga warqabo waxa socda, Hitler ayaa amar waxa uu ku bixiyay in ninkani wax badan ka qoray la soo afduubo loona keeno si uu u ogaado cidda jaajuuska uu yahay iyo sidoo kaleeto xogaha halka uu ka keenay. Dadaalo badan oo ay sameeyeen kadib, Jacob ayaa la soo qabtay waxaana loo keenay Adolf Hitler isaga oo soo dhaweeyay. Waxaana weydiiyay su'aalo ay ka mid ahaayeen in uu sheego cidda u keentay warbixintan uu daabacay, sidoo kalena uu faahfaahin ka bixiyo muqaabaraadka iyo kooxda sirdoon ee uu la shaqeeyo. Jacob ayaa sheegay in aanay jirin cid gaar ah oo xogtani siisay oo arrintaasi ciidanka Jarmalka ku saabsan oo ka tirsan ciidanka Jarmalka. Hitler ayaana intaasi kadib waxa uu Jacob uu weydiiyay sida ay ku suura gashay in xogahan oo in badan ay qarinayeen Jarmalku uu gacanta ku dhigo. Jacob ayaa sheegay in muddo ah uu la socday bogga taxsida ee joornaalada ka soo baxa dalka Jarmalka, waxaana lagu qoraa in hebel oo generaal ah oo hogaamiye ka ah qayb ama unug uu tacsi u dirayo hebel kale oo korneyl ah, kaasi oo hogaamiyo qayb kale oo ku sugan gudaha dalkaas Jarmalka. La socodka bogaggaasi tacsida ee muddada sanadada ah la qorayay ayaa waxa uu sheegay in uu Jacob uu ka dhex baxsaday ciidanka iyo hoggaanadooda meelaha ay kala joogaan iyo arrimaha kaleeto ee uu ku qoray buuggan uu daabacay. Intaasi kadib, Adolf Hitler ayaa waxa uu amar ku bixiyay in la iska sii daayo Master Jacob, waxaana maalintaasi wixii ka dambeeyay wargeysyada laga mamnuucay inay daabacaan wararka la xiriira ciidamada xitaa haddii ay tacsi ay tahay. Master Jacob ma jirin hay'ad sirdoon iyo sidoo kale koox muqaabaraad ah oo la shaqaynayay, balse waxa uu ahaa muwaadin u dhashay dalka Jarmalka. Jacob ayaana warbixintii uu daabacay waxay noqotay in ay ku baraarugaan guud ahaan dowladaha kaleeto ee reer Yurub, kuwaasi oo saxaafadoodu ay xor aheeday. Arrintan oo dunida idil ay ka yaabtay ayaa wixii markaasi ka dambeeyay la heli waayay xogaha ciidanka uu dhisanayo Jarmalka ayaana waxa uu markaasi u aasaasay ciidan lixaad leh, isagoo wixii intaasi ka dambeeyay isku diyaariyay galida dagaalkii labaad ee adduunka. Saxafigan Jacob lagu magacaabo ayaana sabab u noqday in tan iyo wixii markaasi ka dambeeyay Jarmalka aysan saxaafaddu xor noqon. Ilaa iyo maanta aynu nool nahay, Jarmalka wariyaasha ku sugan iyo sidoo kaleeto warbaahinadooduba ma daabici karaan warar aynan xukuumadda iyo sidoo kale dowladda dalkaasi aysan ka warhaynin. Guud ahaan saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkeena maanta.